aryaadaha kala maanay dadku ayaamahan waa naga xiraayeen haddana sidooriyay u xiran yihiin waxaan sabariga la yaabay xoolihii lagu qalay kawaan bari hilib koori baabuurti lagu soo qaada sanca waa soo dhaafi waayeen oo suuqa waa la keeni waayey hadda haddii hunguri idinka haya sancuugu taga hilibkaa soo qaadha war iska daa dadka wadooyinka xirta wax ka hilib cun badan lama arkay meeshay ka helaan aan ogaane wareekii geerada faranjiteeranka jaray ada faranjiteer leedahay war cawska iyo qoryihii iyo caanihii yaa la soo geli waayay beledka maxaad hilib ka rabtaa warjeedka xiran bajaajlayda baa ka faa'iiday gudoomiyihii gobolkuna wuxuu yidhi 3 bilood canshuur ladan kama rabo wiilkii la dilay magtiisi miya warwarihii turkiga lagu dilay jamaal khashoggi magtiisi dawladda sacuudiga way bixisay war Soomaalidu waxay tiraa nin meydkiisa la arkaa magtiisa la qaatay agee lagu duugay waxa kale Soomaalidu tiraahdaa mawd ma murmo war ma haysiine ganacsatadii waaweyneed ayaa cabanaya ka dhaaf kuwii danyarta ahaa waxay leeyihiin beledka wax kala socda ma jiraan waxayna eedayn u soo jeediyeen guddiga ganacsatada iyo madaxda rugta ganacsiga waxayna yidhaahdeen meeshay dawladda naga difaaci lahaayeen oo dhibkana haysta u sheegi lahaayeen ayagii baa jaabkii dawladda galay waxayna yidhaahdeen canshuurtana laga qaado ayaa qayb laga siiyaa sahanyim hang iyo hunsul boogle muraada lanshumiya waleeri warwarkaa naga dhexgelina dhegayso waxaan arkay mid ka mid ahoo gabay tirinaya wuxuuna yidhi gabayre galaambe iyo gooni maahan gacalkeen god bay nugu rideen oo waxbay gurubsanaya aryaa war ma haysada 3 ga'a loo bixiyo nimanka ay ka cabahaayaan war adaan war hayna 3G weeye magacu war dawladdan dabal ana la yiraahdaa goorma 3G lagu soo taray war kuwa qaraxyada sidaba SIS baa la kala yiraahdaa ardadii yaryar ayaa xitaa iskuulada tagi waayay oo gudoomiyaha gobolku bajaajtiiba canshuurtii waa ka daayay ardadana mu iskoolada ka fasax nimba ceesantii ceelkeenan maqli jira war mahmaadanka dheelo waarto lanje weba ororiya leere war horta dawladdu dambay bidda inay dariiqyada xirto dadweynahana dambaa hayso dariiqay maraanay rabaan marka waxaan ku tali lahaa dambiilayaasha raba dariiqa inay qarax soo mariyaan inaan dadweynaha loo cinqaabin oo dawladdu degaamada ay joogaan ugu tagto anigana waxaan ku talin lahaa amni aan loo dhibaatoon lama hele wax kastoo laamaha amnigu dan moodaan inaan u dul qaadano dhibbaha nagu ahaadeen war aan la helo dhilmaanyo lama inis dhiiba ka dhimadaasa leeri dulqaad waa noogniya carad ma cunayna anna waxaan ku dari lahaa wax daruufo keentaa jiroy danuna yeelsiine dariiqyada haddii laga xirxiray shacabkii soo daalay iska sii dulqaataa la yidhi roobku waa dii aniguna intaas ad sheegtay waxaan ku sii dari lahay how dadkaynii daalanay miya darxumaa loogu sii deera dadkaanyii daalanay miya darxumaa loogu sii deera aniguna intaa waxaan ku dari lahaa dadka kale carruurtuu dhalo ayuu cadan u dhoofshaa warcadanta qawdhan sheegay baan ku xasuustaye ceebtii ugu darnayd Soomaali maantaan maqal Soomaali xuutiyiin u dagaalamaysa ayaa Yaman lagu laayaa la yidhi marka waa yaabe goormee Soomaaliyu shiico ku biirtay sheekh fir shuruuga ku raac warniya xuutiyiin baa ka hadlaysaane xuud baa liqay jacaylkii war Soomaali ceebu ma karto ninkii caroodaaba waa ciidansanaya war anigu waa yaabe awalba dameero hogaanna horta mugaan maqla 30 Soomaaliya oo xuutiyiin u dagaalamaysa Yaman lagu dilay aad iyo aad aan uga xumaadnay qalbiguna way rogrogmaday waxaana igu soo dhacay gabay yamyamtiriya hadda ka horoo ahay baalaleyda duushiya dabka howtul hamaguba daf waxay u leedahay janna doonadka ma ah alhawa wal biciid wal mid qadiim wal yiri aryaa biciid waa la qashaahay dad iska gubahaya aniga calooshiiga gadihaya war markii kuwa Soomaali oo shii dagaalmayaan aragi dadka hatirooga gurbaanba buglansi inoo ka hoobadayaan haatana indareeme war shabaab iyo daa'ish kuwa u dagaalama iyo kan shiica u dagaalamay maxay isdhaamaan war markii sanari jirtaan way kudka guur ee qanjo guur waaye war ma haysiina nimanyo koofi dadaalkii waayahan waday waa ku guuleystay dawladaha Belgium iyo Luxembourg ayaana baasaboorka Soomaaliga aqbalay waxay dhahay maanta kadib fiisa aan ku bixinaynaa aryaa fiisa armoonaha waa gardhay bayskana meeqay ku dhiibayaan warnimada wararka aad sheegaysaan aniga mid kale iga cil badan gobolka Gado xarumaha shirkadda Hormuud Kenya
kenya maxay u burburinaysaa safaricom iko wargeelii iyo dadkii ay duqeeyeen markii lagala hadli waayey ayay shirkadihiina ku dareen war adeer soomaaliya quruumaha caalamka oo dhan baa ku loolamaya qofkaan haysan damaanad ama dawlad lahayn oo qaran daafacan waaya dembi duul kala geestaa dusha looga raraa war dawlad waan leenahay dulmiga kenya waxaa ka qabato dhabtii iyo xaqiiqdii la dhaaf lagana dheeraaye dharaartiiyo habeenkaa dembiyo toos u dhacayaane dhirif iyo hadbana kii dhib qaba dhiidhibow furane dhudhun adag hadduu waayo iyo xoog u soo dhiciya dhawaaq waa inuu ciirsadiyo qayladhaan kulule dhiig iyo naf iyo maal hurmuud dhaawacyadii gaaray dawladdeennu maxay dhabarjabkaa uga dhagoolaysay wargabaygaagu abdhayd ma ahane abwaan cabdidhuux shalay wuxuu yidhi inta jawigu sidan yahay xaalku jahawareer yahay bulshaduna jarriban tahay jid kastaaba xidhan yahay caasimaddu jeel tahay naf waxaa u jeeddaa kollay jiibsan mayse jaallayaasha sare tegey jawaab baan ka sugayaa 2 sano kadib baa loo soo jawaabayaa abwaanku waana mahadsan yahay dulmi daa'inkay daaqma saaree dad iyo duur ma laysku deedaa la yidhi kan barooranaya mubarakacayaashii hargeysa xalay ku gubtayba ma inta guryihii ka gubtaan baad misare ku sii diganaysaan war ayagoo dabqabsaday ayaan ka baktinay maanaa gubinay war shiiqaa masiiba naxdinluhu ka dhacday doofaarba masiibada waa laga sheegaayey wartan war shiiqa dhacdaa ka daran naga dhegayso warka nimaa xaaskiisa oo 10 carruura dhashay 5 xabadood ku dhuftay hadda waxaan maqli jiray nimo ceeb reeb kaas waa in la dilaa ceeb ha reebe war nin soomaaliya gabar hindiya qaba ayaa muqdisho looga afduubtay ciidanka dawladda ayaana ka soo badbaadiyey hadda maanta dalkeedii ayaa loo dhoofiyey nabeetanaa ceeb kalaa oo gabartaas ma dumaashiyaasheeraa afduubta soomaaliyuhe waa dumaashiyaasheer iyo koo dhamme markii ay baxaysin waxay tidhi isikiika mukureenka dil kastana mukurahe ay tidhi aryaa makace makore makaraan dhagaxoobaan maqli jiray tanu ceeb weligeer ka fogaa mayso nin walbo waddanka wax uu dhaama male war waa heestii qarniga nabee kuwa kan u heesa inaysan karinka soo habaasin warnu waxaan dhihi lahaa raaxada adduunyada hadduu kii rabaa helayo rakashiya rafaad lama maren lamana riqmeene qof walba rugtiisuu nimcada raqi lahaa geese waxaa ruuxda loo dhibahayaa raysa dabadeede rajadiiyo hankuna uunka waa raalligeliyaan runtiisu ilaahu roobniinshan aamiin war ma haysiine booyad qarax lagu soo raa ciidanku gacanta ku dhigeenaa la yidhi aryaa beledul amiinkiiba ciidankii kumaandoosaa ku soo daataa la yidhi war booyad biyaa lagu qaadi jiray waa maxay qaraxuna war ma qaraxun baa ku jiraysan ilaa weligiin laga taga allahaydin ammaano yeele